Assalaamu calaykum. Ku soo dhawow xiskaal daawada meel kasta aad dunida ka joogto. Waa qayb kale oo ka mid ah macluumaadka kala duwan ee ka baxa barta YouTube-ka ee Xiskaal oo kala ah macluumaadka caalamka iyo fiditaanka ama soo bandhigitaanka xaqiiqooyinka qarsoon iyo macluumaadka la xiriira qaybta caafimaadka. Qaybtan oo ah qaybta caafimaadka ayaana ku eegi doonaa sida aad u joogteyn karto caafimaadkaada. Waxaan ku noolahay waqti ay jiraan macluumaad aad u badan oo ku saabsan sida aad ugu noolaato nolol caafimaad qabta. Laakiin waxaa la yaab leh in tirada shakhsiyaadka aan caafimaad qabin ay aad u badan yihiin. Sababtuna waxay tahay in badan oo dadka kama faa'iideystaan macluumaadka caafimaadka. Waxaan halkan idinkula wadaagi doonaa 6 waxyaabood oo ku saabsan sida aad u joogteyn karto caafimaad kaamil ah. Balse intaana muuqaalka bilaabin like saar oo subscribe samee si ay kuu soo gaaraan macluumaadka aan soo gudbino. Si fiican wax u cun. Jirkaagu wuxuu u baahan yahay nafaqooyin kala duwan iyo xaddiga saxda ah. Nafaqooyinkan waxay ka yimaadaan cuntada aan cunno, la'aanta midkoodna waxay horseedaa caafimaad xumo. Cunista wanaagsan waxay caawinaysaa in cudurrada laga ilaaliyo, gaar ahaan haddii aad cunayso cuntooyinka ka kooban fitamiinada. Khubarada nafaqada waxay kugula talinayaan cunista cuntooyinka dufanka yaryar iyo kaarboga. Cuntadaaduna waa inay isku dheelitiran tahay oo leh xaddiyo ku filan oo ka kooban borotiinno, macdano iyo fitamiinno. Seexa waqti kugu filan. Inta lagu jiro hurdada, jirkaagu wuxuu helaa waqti uu dib ugu soo noolaado. Unugyada sunta ah iyo hormoonka walaaca ama stresska ayaa laga nadiifiyaa qulqulka dhiigaaga. Nidaamka dheefshiidka ayaa helaya waqti uu ku nasto oona iskiis isku nadiifiyo. Sidoo kale maskaxdaada ayaa nasato. Caafimaadka maskaxdaada ayaa dib loo soo celiyaa. Hel waxa aan ka yarayn 8 saacadood oo hurdo ah habeen kasta si jirkaagu ugu sii jiro xaalad aad u fiican. Cab biyo badan. Biyaha ayaa looga baahan yahay nidaamyada jirkaaga si ay u shaqeeyaan. Biyaha waxay ka dhigan yihiin qaybta ugu weyn ee dhiigaaga, isla markaana xaddi aan ku filnayn oo biyo ah waxay faragelin ku haysaa gudbinta nafaqada cuntada iyo oksijiinta. Unugyada jirkaaga waxay u baahan yihiin falcelinno si ay u ilaaliyaan caafimaadkaaga. Cabidda cabitaanno biyo ah oo ku filan dheefshiidka cuntada, jirkaaga wuxuu helayaa nafaqooyin loo baahan yahay. Cabid la'aanta biyaha, maqaarkaagu wuxuu u ekaan lahaa mid qallalan. Cab biyaha waqti kasta oo haraad dareento, ilaa aad dareento inuu haraad uusan jirin. Samee jimicsi. Jimicsiga waxaa loo muujiyaa siyaabo fara badan in uu wax u caawiyo. Wuxuu ilaaliyaa in miisaanka jirkaaga isku dheelitirnaado. Sidoo kale wuxuu caawiyaa yareynta cudurrada halista ah ee habnololeedka. Heerarka hormoonka walaaca ama stresska iyo kolestaroolka ayaa hoos loo dhigaa markii aad samayso jimicsi. Uma baahnid inaad samayso jimicsiga adag. Jimicsigu wuxuu noqon karaa wax sahlan, sida wadada aad ku socoto, baaskiil ood wado, ama aad aadid goobtaada shaqada. Ka digtoonaa cudurrada habnololeedka kuwaas oo khatar ah. Jeekin ama hubitaan ku samee qoyskaaga si aad u ogaatid cudurrada ugu badan ee xubnaha qoyska. Kadib tag goobaha caafimaadka oo iska baar ayaga. Qaabkan waxay u badan tahay inaad ku ogaato ama ku qabato cudurka marxaladiisa hore, kadib intuusan u gudbin heer adag ama aan laga fiirsan. Ka fogow caadooyinka xun. Caadooyinka xunxun ayaa caafimaadkaada khatar gelinaya. Waxaa ka mid ah cabista sigaarka iyo khamriga si xad dhaaf ah loo cabo iyo waxyaabo kale oo badan. Go'aanka gaar inaad joojiso caadooyinkaas. Haddii aad tahay qof ku imtixaanan caadooyinkaas, waxaa lagula talinayaa inaad u joojiso hab tartiib ah. Joojinta caadooyinkaas, jirkaaga ayaa xalinaya dhibaatooyin aad arki karto. Markii aad qaadatay talooyinkan caafimaad, waxaad si fudud ugu noolaan kartaa nolol caafimaad leh. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad ficil samayso iyo inaad ku sii socoto go'aankaaga si kastay ahaataba. Intaas ayaan ku soo koobaya. Waxaan rajaynaynaa wax badan ka faa'iiday. Haddii aad ka heshay like, subscribe samee si muuqaalada xiga kuu soo gaaraan. Wassalaamu calaykum.